السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ka hadlaynaa sida commentiga loo xiro ama loo furto. waxaad furanaysaa appkaaga Chrome. appka markaad furato waxaad ku dhifanaysaa meesha ay ku qoran tahay comments calaamadaas. commentigan hadda wuu furan yahay, laakiin sida u soo furanaysa haduu ka xiran yahay waxaad taabanaysaa halka setting ay ku qoran tahay. setting kadib markuu ku soo baxo waxaad ku dhifanaysaa upload defaults. upload defaults haddaad ku dhifato waxaad kusii dhifanaysaa advanced setting. meeshaan ay ku qoran tahay all potential inappropriate comment. hadda wuu furan yahay, haddaa xiraysid waxaad ku qoraysaa all allow comments for review ama disable comment. disable comment haddaa dhacdo waa xirtay commentiga, laakiin hadda wuxuu noo saarnay all potential inappropriate. markaad change ku suubiso halkaas ayaa save dhehaysaa. markaa meeshaas ka soo furato kadib inta imaanaysaa halkan calaamada ku qoran tahay taabanaysaa. commentiga kadib help for review ku dhifanaysaa. meeshaan ku soo baxayso commentiga, meelahan ayay comment kaaga soo muuqanaysaa ayadaa ku dhifanaysaa. kadib all potential inappropriate ayaa ku dhifanaysaa. sidaas ayuu commentiga kugu furmayaa. waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysatay sida commentiga taleefankaaga loo furto. haddaad videogan ka heshay fadlan subscribe saar, like siina share garee. waa ku mahadsantahay daawashada aad daawatay videogan.